mararka qaarkood waxa weeye baraha bulshada waxaa ku arkaysaa fiidiyoyaal oo cajiib ya oo mararka qaarkood waxaa isdhahaysaa dadkan hadlaya dhagahooda ma soo gaartay hadalka dhahayaan ya marka dadkaas oo hadalka aan fiicnayn ku hadla waxaa ka mid ah dad oo mas'uuliyad dowladda gacanta ku haya waxa weeye dad oo xildhibaana weeye qaarkood oo wasiirooyin weeye marka waxyaalo oo cajaa'ib ah bay ku hadlayaan marka waxyaalaha ku hadlayaan waxay ku tusinaysaa dadkan inaysan u qalmin mas'uuliyadda loo dhiibanayo oo halkaas ay qabyaalad darteed ay halkaas ugu yimaadeen qabyaalad halkaas keenta ya marka waxa la iska dhahay maaha marka waa kan videogan baa xaqiijinaya nala dhegeysta maanta waxaan sheegaa in maaragtay kacaankii maxamed siyaad barre markii la kiciyey waxaa magaalada muqdisho hantida ugu badan oo dowladdu leedahay ku fariistay beesha mudullood iyo beesha habargidir waxaa maqlaysa ninkaas waxa weeye sharaf u arkaa dowladdii oo la burburiyey iyo in xaaraan laga taajiro ku sharaf u arkaa oo weliba ammaanaya yaa ninka saas u hadlay waa xildhibaan wey ya majiso soma marka ninkan oo halkan taagnaa muxuu rabay muxuu la hadlayaa yuu la hadlayaa waxa dad isku qabiil yihiin buu isku yeertay wuxuu ka dacwoonaya waxa weeye wuxuu dhahay dowladdii wixii dowladda ahaa oo dhan dowladdii mas'uuliyadda dowladda dhan qabiil hal qabiil bay ku egta ya marka ayaga waxa weeye saas buu dacwoonayeen marka waa kan baa soo hadlay dhegeysta waxaan leeyahay adinka inaad madaxweyne noqotaan duqii magaalada noqotaan maxkamaddii noqotaan agaasimihii marashiibiyada noqotaan joomitirkii xaafadaha soo xisaabaya noqotaan kii xaliga jiidaya noqotaan gobolka banaadir madaalo ugu sareeyo madaxweyne ugu koreeyo gudoomiyaha canshuuraha kastamada ee laboorka noqotaan kii aad noqotaan turbataariyada intaasna ay habegidir waxay soo shaqeeydo ha laga qaado annaga waa noo cuntamilana haddaa habegidirnaha marka dulmiga uu ka dacwoonayo waa miduu asagu codeeyey wey ya dastuurka beenta ahaa oo maalintii hore oo xasan sheekh uu keensanayay dadka laaluushi qaatay oo codeeyey buu ka mid yahay ya asaafkiisa dhahay dhegeysta anigu waxaan ka mahay nimankii dastuurka sixiyey oo marka dulmigii uu ka dacwoonayo waxaa mid asagu codeeyey wey marka taas waxay ku tusinaysaa ninkan inuusan u qalmin mas'uuliyadda dowladda uu maanta gacanta ku hayo marka ninkan oo kale waa xildhibaan wey marka halkaas qabyaalad baa keenta ya marka dulmiga ka dacwoonayo waa mid asagu codeeyey wey laaluush buu qaatay waxa weeye wax garad nin ah maaha marka wuxuu codeynayo natiijadeedii waa tan gacanta ku hayaa ya laaluushkin wuu cunay marka maxaa rabtaa oo meesha uga qaaqlaynaysaa marka dadkan oo xildhibaano fiican waa jiraan oo ilaad ka baqay oo yaqaana oo xalaal ishaay xaaraanta u kala socan tahay laakiin dad yar oo waxa weeye gacanta lagu tirin karo marka dadka xildhibaanada ama dadka wasiirada ah sidoo u fadhiyaan meesha waxa weeye waxaa la aaminsan yahay waxa weeye waa maxaa cunaa wey maxaa cunaa ya mas-uuliyadda loo dhiibanayo waxa weeye uma qalmaan in loo dhiibo